السلام عليكم صاحبي على سود وهذا نينكي ديلي نينكي عنصريغا ee Mareykanka lagu magacaabay Charlie ayaa gacanta lagu soo dhigay FBI da Mareykanka ayaa labadii maalin u dambeysay baadi goob ay ku haysay kadib maanta gacanta ku soo dhigtay ninkiina waa la hayaa waa wiil dhalinyaro ah oo jira da'da 22 sano 22 sano uu jira ninka dhalinyarada waa la soo qabtay sidoo kale waxa maxkamad la soo taagay ninkii isku dayay in uu madaxweynaha Mareykanka xilligii uu ku jiray ololaha Trump halka dhigta xabada kaga dhufan jiray ee rabay inuu dilo ayaa isagana maxkamad la soo taagay ninkaas marka waa nin fanni ah nin yaab loo ayuu ahaa markii maxkamada la soo taagay iyadoo la xukumin oo xogtiisa aan la dhageysan ayaa inta laga yaabay baa leeyahay fadhi kale hana loo balamiyo ninkii dib baa loo celiyay soo dhawaada saaxiibayaal dad nagu cusub tahay muuqaalka like saar sidoo kale subscribe oo nagu soo biir aad ayaad u mahadsan tahay okay aan ku bilawnay ninkii cunsuriga ahaa ee Charlie lahaa Mareykanka lagu dilay gobolka lagu magacaabo Utah jaamacad la yiraahdo Utah Valley ayaa lagu dhex dilay ninka markii la dilayay live bay ahayd kaamarada saarna dad badan buu u qodbadeynay waxa lagu wareersanaa yaa dilay sidee loo dilay qofka dilay noocu noqon doona waa qof noocan maadaama uu ahaa nin cunsuri ah oo diinta islaamka dadka haystana aad iyo aad uga soo horjeeda dadka madowga aad iyo aad maaragtay u nacab diinta islaamka nacab soo galootiga nacab waxa lagu tuhunsanaa qofka dilay inuu noqon doono kaliya qof ama islaam ah ama madow ah ama soo galootiya intaas baa la islahaa laakiin arintu sidii si ka duwan ay noqotay ninkan dhalinyarada oo lagu magacaabo Taylor Robinson lagu magacaabo ayaa la soo qabtay ninkan muuqaalo badan oo laga baahiyay isagoo oo mishinka fulinaya boorso wata hadba derbi fuulaya hadba meel ka talaabaya ayaa la baahiyay muuqaaladiisa kuwaas oo ay duubeen kaamirooyinka derbiyada ku dhagan ee jaamacadda ninkan Taylor Robinson la yiraahdo waxa uu kamid ahaa ardayda jaamacadda ayuu kamid ahaa waxyaabihii marka lagu wareersanaa ee lala yaabay ninkan waxa uu ahaa ninkan isagoo oo aan soo marin wax tababar ciidan ah ayuu 200 oo mitir meel u jirta 200 oo talaabo meel u jirta ayuu ka soo toogtay hal xabba bisuna adeegsaday hal xabba bisu riday halkii xabbana bartilmaameedkii ayuu kala helay sida ayuuna ku dilay marka waxa la leeyahay sidee ku dhacday wiil 22 jir ah oo jaamacadda dhigta oo aan ahayn nin soo maray tababar ciidan in 200 oo mitir bartilmaameed oo hal xabbo ku toogta sidee ku dhacday baa la leeyahay taas ayaa adduunka oo dhan aad iyo aad la isku weydiinaya marka hagaag ninkan dhalinyarada ah mid baa laga soo ogaaday marka aabihiis wiilkan dhalinyarada xogta la helay yani arintan markii la baaray xogta ka dhalatay waxa ay noqotay ninkan dhalinyarada aabihiis horta ninkani ma ahan nin muslima ma aha yani weydiimaha awal dadku isla dhax qaadayeen oo isha lagu hayo waxay qofkan ma muslim uu noqon doona ma qof madow uu noqon doona ma qof soo galooti uu noqon doona qof nuuceeha ayuu noqon doona horta ninkan muslim ma aha madowna ma ahan soo galootina ma ahan cid kaleetana ma ahan waa nin dhalad ah oo Mareykan ah oo wadankaas u dhashay oo dadka Trump meesha uu dhalashada ka sheegto la mid ah ninkan hadda uu la mid aha ku xuquuq aha ninka hadda uu dilay ayuu ku xuquuq aha arday jaamacadda dhigtana waa uu ahaa ninka intaan la dilin ka hor aad ayaa looga digo waxa la jaamacaddaas ammaankeedu ma sugnay joog laakiin madaxdii iyo dadkii howlwadeenada iyo macallimiintii jaamacadda ayaa ku madax adeegay in ninkan uu meesha imaado khudbada ka jeediyo halkaas inay amaan tahay okay maxaa la soo ogaaday marka waxa la soo ogaaday ninkan aabihiis inuu ka mid ahaa ciidanka militariga Mareykanka inuu ka mid yahay ayaa la soo ogaaday marka waxba la qiyaasay waxa weeye maadaama aabihiis uu ahaa nin ciidan ah inuu halkaas ka bartay oo hubkii aabihiis uu adeegsanayay ama guriga u yaalay mararka qaar inuu saldhig ama xeerada tagaa laga yaaba aabihiis uu raaca laga yaaba howlgallada qaar inuu iska raaca laga yaaba marka ninkan halkaas wax ka soo bartay mid kale Mareykanka waxa ka jira mararka qaar dadku ugaarsi bay aadaan wal ugaarsada xilliyo waxa jira siisanada ama xilliyada qaar waxa jira ugaarsi la aadi karo oo ugaarta ama deerada ama sagaarada aad soo dilan kartid marka aad soo dilanayso waxaad qaadanaysaa qoray adiga wadankaas qoryaha waa la iska haystaa mid qoriyo sharciyeysan yihiin wax caadi ah qoray baa qaadanaysaa waa la bartaa shiishkan marka ninka dhalinyarada ugu dambeysay waa la soo qabtay FBI da Mareykanka ay soo qabatay muuqaaladiisa iyo sawiradiisa ayaana la baahiyay waana ninkan aad arkaysaan Taylor ayaa lagu magacaabaa Robertson marka kolba maxkamad bay geen doonaan inay dili doonaan iyo in kale ma ogi sharciyada u degsan ma aqaan deerba way daldalayaan hadeerba xabsi daa'im bay ku xukumayaan okay ta marka laga yimaado ninkan aad arkaysaan waxa lagu magacaabaa isaguna Ryan Roth ayaa lagu magacaabaa waa ninkii isku dayay inuu Trump dilo isaguna meel fog buu ka soo toogtay xabad sidaas oo kale ayuu
uu rabay inuu u qaarijiyo laakiin uu suurta gali weysay ninkan isaguna intaba ma ahan madowna ma ahan muslimna ma ahan cid kalena ma ahan soo galootina ma ahan waa nin la mid inuu dilo asana rabay arintan marka Mareykanka ciidamada iyo booliska waxay badanaa targetka saarin jireen hadii shil uu dhaco ama uu dhaco maaragtay dil uu dhaco kale in lagu eedeeyo dadka kale soo galootiga in lagu eedeeyo laakiin taas waxba kama jiraan ayay noqotay ninkan marka maxkamad baa la soo taagay maxkamadii markii la soo taagay waxa uu iska diiday inuu qareen qabsado iska diiday waxa leeyahay ebelow qareen ma u baahan tahay inaad qabsid maya aniga nafsadeyda difaacanaya taasna waa la ogol yahay qofku inuu isagu isdifaaco qareen la'aan haye waxa la yiri maxaa isku difaacaysaa maxkamadii baa la furay waa la soo taajiyay ninka odaga ahaa markii la rabay inuu mowduuca ka hadlo oo isdifaaco oo arintu sida ay u dhacday iyo waxa arinta inuu ka hadlo markii la rabay mowduuci dhan uu bedeshaba waxa uu ka hadlaa siyaasadda caalamka iyo sida ay wax u socdaan falanqeyn buu galay ninka odaga ah falanqeey caalami ah ayuuba ninka odaga ah galay war mowduuca ku soo laabo war eedayn baa kugu socday eedaynta iska difaac maya waa la aaminsan waayay si kasta oo la isugu dayo waxa la waa la aaminsan waayay ninka odaga ah war eedayn baa kugu socday isdifaac maya wuxuu ka hadlayaa cimilada adduunka iyo siyaasadaha ishaystay adduunka iyo sida ay wax u soo xumaanayaan iyo wax noocaas uu ka hadlaa uma joogaba waxaan aad arkaysaan ugu dambeyntii marka maxkamadii waxay go'aan ku gaartay in kalfadhigaasi la xiro la isku soo laabto dib la isugu soo laabto oo mar kale la balansado ninkan si uu isku difaaco ama qareen loo qabto hadii isagu sida uu ku sii wado maaragtay siyaasadaha adduunka ishaystay waxaas mar kale ka sii hadlana wuxuu noqonaa aakhirka in qareen loo qabto la yiraahdo orniyahu dabcan marka qareen aad qabsanaysid dhaqaale iyo waxaad u baahan tahay kolba dhaqaalahaas uu san haysan ma ogi ma fahmin laakiin waxay noqonaa aakhirka ilaa qareen la'aan qofkan lama xukumaye qareenkaas in loo qabto ugu dambeyntiina waxa weeye la xukumo sidaasi xabsiga loo geeyay ayay noqonaysaa dilalku Mareykanka way ku badan yihiin aad iyo ugu badan yihiin har iyo habeen ayaa la isdilaa mar rumaysanaysaa Afrika wadamada ugu qalalaasaha badan ayuu Mareykanku ka qalalaasay iyo dhibaato badan ka shida badan dilalka Mareykanka ka dhaca Soomaaliya kama dhacaan ma ogtaa ma garwaaqsan tahay qofka saay qoray buu sharciyeysta maafiyada iyo gaangiska ugu waaweyn ayaana halkaasi jooga oo dhan kasta wax ku dhaca aad baad mahadsantiin saaxiib yaal hadda nagu cusubtiin soo dhawaada muuqaalka like saar sidoo kale nagu soo biro subscribe dhaw. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.